بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة siduu ii galay haddaanan u gelin siduu ii galan waa xalqadda cinwaankeeda. waxaan arkayay firdhiye oo la kulmay ugaas maxamuud oo wata 4 nin oo isku reer yihiin. waa same scenario, waa tii garaad mukhtaar oo kale. anugu waxay ka wada hadleen warma hayo. telefoonka ugaas maxamuudna maba aqaaniba ma hayo. sidaydabana saan laascaanood uga imi madax dhaqameedna lama hadlo, siyaasiyiinna lama hadlo. laakiin waxa baraha bulshada lasoo dhigaa hadlaya, waxna waa lagala soo bixi karaa. ma filaayo inay baraka ku kala tageen. maxaa wacay? diwaaninka saxiixiisii raggii uu soo qoray la tirtiray. firdhiye inuu albaabada garaaco waxaa ka qurux badnayd inaanu markii hore dembiga intaa leeg ee karaamo darrada ah, ee xurmo darrada ah, ee qiyamka iyo akhlaaqdu midna aanay oggolayn inuu sameeyo. muxuu u samaynayay? laf jabtay nimayow sideedii ma noqoto, waase la kabi karaa. anigu qof aan hafrayaana ma jiro, qof aan dhaliilayaana ma jiro. maamul soomaali ka jira oo aan wax ka rabaana ma jiro. waxaan u taagnahay war waxaasi waa baatil aad samaysay, ka joog. haddaad ka joogi weydo waa lagu naqdiyayaa. cidi ku caayi mayso, cidi ku habaari mayso, cidi waxba kuu sheegan mayso. laakiin naqdiga waa inaad dabarka saarataa oo aada oggolaataa. maxaa la ii naqdiyey? maxaa wixii siyaasad ahaa ee aan ka shaqaynayay looga hadlayaa? caqlida maaha. haddaad ku fakartidna waa gardaro. firdhiye waa la naqdiyayaa, xasan sheekh waa la naqdiyayaa. nin allaale ninkii durbaan tuntay isagaa ilaaqda dalbaday. soomaaliduna ma taqaano naqdiga. way caayay buu ku odhanaya, ama hebel baad cayday buu ku odhanaya. war ma caayina waa naqdiyey. wixii aan arkay baan ka hadlay, wixii aan arkay baan sheegay. ceeb ma aha. waxaan kaloo baraha bulshada xalay ku arkay nin la yidhaahdo cadaash oo ay firdhiye kulmeen.
عطاش وانك كراستي سي لبوبي سبحانك يا عظيم oo iska aamusay oo yaabay sabab ku kaliftay kuraas garaad soo qoray iga tirtira kuwaa ii qora sabab meesha tiilbama 11 bilanadi baan ka qayb galay ama shiraas wallaana taa aan la sacaanood ku soo arkay aanay u dhicin waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin daawo daawadu xabar ma taalo daawadu la sacaanood bay tahay dadkii shalay meel u wada jeeday ee xabadda ridaayay saaka uma wada jeedaan nin waliba garaadkiisii wixii uu saxeexay ee laga tegay buu ka xun yahay sida anigu baan u sheegayo aan uga xumahay qodobka intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa taariikhdu waa in laga faa'iidaystaa oo qofku ka faa'iidaystaa ninka 2 sannadood oo ku meel gaadha xildhibaan ahaa ee sheeganaya wadaadka ee fidwada akhriyaya ee garan waayey 2 sannadood baad xildhibaan ahay qoys kale ayaa maanta la siinayaa aniga ninkaasi diin iima sheegi karo fidwadiisana ma qaadan karo da'da uu maanta joogana da' kursi ku dhigtaba ma ahayn wuxuu ahaa haddii 2 qof isqabato nin xoolihiisa ku bixiya ma aqaan anigu hebel weli iyo wax la yiraahdo ma aqaan yacni istacajabka aan soo arkay bay ka mid tahay ninkii ummadda kala maslixi lahaa oo kursi loo boobay ku fadhiya saaka oo oran waayey wakhtigeedii ma joogo shalay baan ku fadhiyey war maanta iga daaya oran waayey ee saaka ku fadhiya war ninka anigu diinka dhegaysan maayo waa waxyaabo lala yaabo yacni hadda marka qofku uu waayeeloobo oo da' gaadho khilaafka si alla siduu ku xallili lahaa da'daa faraysa wakhtigaa faraya wax aan la yaabay iyana ahay qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa runtu waxay tahay SSC khaatumo way jirtaa xukumo adag way adkaysatay anigu magac kale oo ka jira lascaanood garan maayo
وحلقوا صوت توري بين أحد مؤامرة شرقون بربر هوجي هلاك أردن وحي أن إسسي خاتمو أخين نوع سيحاي مرة في العيو إني ميل فوق قاعد كرتو وحلقوا صوت توري ولو كان انتهس أيام كنت في الحقيقة طلو ومرد قروا ويدو يمرد قالوا ويدو فرديه وحكو جرا يكوح ليش حلي أنا تلدي قاري كريم لكن مستقبل كحصوص دورة مالمها قرار إلا صومري فردية سبب ويهي قلو كان انتاس أيام كنت في الحقيقة بالبحنت وحن لايه هذا دكتونادا دبت يقودوا من مدينة يعني فردية كانت عادين يكوح دي سياس أولوله ديجاك دحتاجن كخد بينسا وضبط دقبات باطهاي محاكو قيمة مندوب باتي مندوب maxaa idin geeyey goobtii doorashada deegaanka ee codka lagu bixinayay waa madax dhaqameedkii hadda u sarreeyay magaalada waa aqoon darro waxaa lagu mintidayaa وحني إني هرجلان والمهرجليان الحقيقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا